okay maxaa ka mid ah hadiyadaha uu Ilaahay bixiyo hadiyadaha way badan yihiin laakiin mid ka mid ah hadiyadaha waaweyn ee Ilaahay bixiyo waxaa ka mid ah inaad ka kibir badnaato kuwa isqaad qaada isla weynida badan isla markaana aad ka jilcaanaato kuwa nugul ee masaakiinta waa hagaag aad baad mahadsan tahay in ka soo qaad inaan ahay walaasha kula dhalatay bal tala gaabanaysi hadda walaashay waa tahay dabcan oo madaxay saaranta meeqaam sarna agteed waa ka leedahay talada aan adiga gabar walba sii lahayd tahay qofna hala tirsan qofna hala tartamin qofku dhigmo ma jirna wow إنه بعادي معها. exactly قفنا على ترسم قفنا على ترتمين you are three. إن كورن هدي أنا بهذا واحد أديكو هايسو. إن كلي معها حتى أصحابتي إذا هدي مقشو إن أنا حي واحد أدي إيه باي بانته واحد أدي أسكال إيه صدقنا هذا كوهيا. أوكي. إن سيده أيام قف أن ربه شعيل بيري كرا. دت كلامي كوميين قف عادي يعني وكلا درين كيس هذا qofka aqliga badan adigoo kala ana aqligiisa ama garaadkiisa la hadlaa daniisu waa qofka markaas gacanta ku dhigi kartaa meena soo qofka caadiga ah dareenkiisa la hadal qofka garaadka lehna aqligiisa la hadal waa helaysaa markaas haduu dareem wayna ka sii sacad okay en ma tagi lahayd xalfad xilli daba laga yeeray santa trigay in aad noqoto qofka labaad ee xaflad lagu casuumo aniga waxa igala qiimo badan inaad noqoto qofka koowaad ee tacsiil uga yeeray macna dalaalida aan agteed mar walba number 1 kaliya xisaabiya number 2 ma qaato mataylin markii ma jiraan waxaad adigu samayn karto balse dad badan ay samayn karin waa kala dabeecadii dhaqan duwan yahay I think an mar walba hajala nolosha inay jahwareeri intay jahwareeri lahayd so waxyaabo badan oo dadku ay ku qoslaan waan ku ooyaa waxyaabo badan oo dadku ku ooyaan waa ku qoslaan marka nolosha rabeen is dib dhaafay meena qof nooceeya ayaad noqon i oran lahayd of course hadana waa taas filayo laakiin adiga gabar kasta waxaan dhihi lahaa waa inaad noqoto qof wixii ay rabtana dhihi karto waan rabaa wixii aysan rabinna dhihi karta waxaan ma rabani lama soo marsiinin meena qof yes iyo no labadaba dhihi kara meena oo kala hadda waana taas filayo okay ilaa in intee la eg bas ku kalsoon tahay qadar eebe iyo qabri mooyaane qorshaaniga aan leeyahay ma aaminsanin uu jiro qof baajin kara marka boqolkiiba boqol isku soo ii sheeg nimco aan haysto balse aanan dareensanayn haddii mar kasta oo hurdo ku qabato aad seexan karto nimco haystaa meena dad badan oo xanuunsanaa jira mar walba hurdi karin dad badan oo mashquulaa jira mar walba hurdi karin salaadeed mar kasta oo hurdo ku qabato daawad inaad seexato alxamdulillah wow in ma jiraan wax ka yaabiyay oo dad ku dhow aad ku aragtay aad mar badan waxaan arkay dad iiga dacwoonaya qaladaad aan si aan ku talagalahayn iiga dhacay halka anigana dadkaas aanan u qabsan qaladaad ay si kas ah iiga galeen meena bini'aadanku waa dad cajiib ah waa dad mixnada waa dad imtixaan ah inta ugu badanna waxa ay kugu samaynayaan ma fiiriyaan laakiin wax adiga ku samayso kaliya ayay eegaan marka wixii waliya ku badnaa waa intaa wax kale ma ku haray inaba caadi ma aha aad baan kaaga mahadcelinayaa su'aalaha ku weydiiyey sida quruxda badan aad iga jawaabtay mahadsanid aad ma santahay Triig Yusuf Cabdi Tulmoon su'aal cajiib ay weydiisay asxaabteedana barnaamijka kooban waayo maalinkooda Ramadaanka ugu talagalay marar badan insha Allah Triig idin soo celin doona barnaamijka kuwanka qurux badanna waa idin soo gudbin doona haddii la idmo anigii Triig isku dhow waxaan leenahay Ramadaan Kareem Emri iyo caafimaad saaxiibayaal